horta geeridu waa xaq. qof walba waa uu dhimanayaa. qof walba waa uu dhimanayaa. abbaayo anigu waa la dareemaa aabbaan ahay, awlaad baa ii joogta. ilaahay horta u naxariisto awlaaddeeda oo dhimatay ama wiilkeeda oo dhintay, ma fahantay? laakiin asad, adiga mid waa inaad qaadataa mas-uuliyaddeeda. middaas oo ah in aadan booqan. taas waa mistake. bini'aadanaana tahay. qof bini'aadan qofka bini'aadanka ah ma og tahay perfect maaha. perfect in aadan booqan intaas oo aadan isbitaalka taas midaa ka hadlaa. macnaha waxaan ula jeedaa dad hadday saas ila rabeen inaan yacni dhulka liigiyo ama washamsi liigu qaado still booskaygaa taaganahay. haddii washamsi laisku qaadane inta muuqaalka daawata dhan hal mar wada bixleed. sax ma fahantay? marka waxa waaye ayaan la degdegin, waxa la hubsado. arrinkan waxaa la taagan yahay xil laisku ducayn lahaa, xil walaasheen niid loo dhis lahaa la taagan yahay. yacni in lasii khasab ma ahaba. sax waaye. marka go-aanka usoo galne yaa sababtaas waaye. soomaaliya waad maqlaysaan ninka siduu leeyahay. hadda markii aan ku soo wacay, dad badanaa waxay ugu dhaheen commentiga asad isbitaalku ma jiro oo waa fake. ma fahantay? waxyaabaha aad diidanaa inaa kasoo hadlaa taase kaamiradii aad boorso wataa igama harto. ma fahantay? haddaa soo hadlo oon arrinkaas ma jiro lii dhaho waxaana isdimwaa in lii dhaha diidaa. xaaladii caafimaad ana og. ma fahmay? marka waxa waaye youtube-kaas aka maqanaya uma maqnina wax kale uga maqniye. yacni awood aa yeelan waay darteeda uga maqanaya maahane. alxamdulilah maskaxdeeda iyo idgeyga iyo wixii aan ku socdo dhan notiskeyga ii qorshaysan yahay. waa gartay. marka waa sax. horta asadow, wax haddii ay dhacaan ama qalad oo dhaco kale, soomaalidu waxay dhahdaa sidee loo xaliyaa. ma fahantay? haddaay aniga yacquub waa soo galay lifeka, waa uu soo qabsaday. horta geeridu waa xaq. qof walba waa uu dhimanayaa. qof walba waa uu dhimanayaa. abbaayo anigu waa la dareemaa aabbaan ahay, awlaad baa ii joogta. ilaahay horta u naxariisto awlaaddeeda oo dhimatay ama wiilkeeda oo dhintay, ma fahantay? laakiin asad, adiga mid waa inaad qaadataa mas-uuliyaddeeda. middaas oo ah in aadan booqan. taas waa mistake. bini'aadanaana tahay. qofka bini'aadanka ah ma og tahay perfect maaha. perfect in aadan booqan intaas oo aadan isbitaalka taas midaa ka hadlaa. wiil oo waxaa jira isagana hadda dhow geeriyooda ilaah u naxariisto isla seem. yacni haddaa aragtin kalmooge yacni youtube-keyga 3 jeer 4 jeer kasoo hadlay oo la caawinayo. cudurka ku weynaaday. sidoo kale waan isku fiicneen, cid ka warhaysa ma lahan. uu geeriyooday alxamdulilah, tiraba umaad ilaah u naxariisto. markaasaa waxaa dhacday meeluu duugi meel kale xitaa dadka xaafadda xitaa may soo ogeyn. dadka social media iska daayay. ma fahanti? markii la duugayay waktiga galabtaa laiskuula heshiiyey, laakiin way kasoo hormartay duhurtii la dhahay. duhurtii camalaa la duugaa la dhahay. marka dadka qaar dhalinyartii way isku fiicnaayeen. yacni hebel ma kasoo qaybgelin aa la isku qabsay. marka tanne waxay la mid tahay yacni layskama warhayo inaan gabadhaas u tacsiyey iyo in kale cid og ma laha. soomaalidana waxay rabaan inaan video ka duubo baayo ilaah u naxariisto aan ka dhadhaho, saasay ku qancayaan. ma fahanti? markaan u tacsiyeyna yacni anayba xaaladii xaal ahayd. mana jir lahayn bataa inaan video kasoo duubo, sababtoo ah qof dhibaataysan xanuunsan oo xaalkeed ilaa og ahaa. ma fahmay? marka waxaan halka rabo waxay tahay
meel aan og ta'siina iyo meel aan og tagay iyo meel aan wax inaa wax dhan la bayaanayo sidaa sheegto ayagu inta badan ama dadka ma ogtahay horta dadkan Soomaaliyeed asadow macnaha markii laga hadlayo YouTuber macnaha adiga waxaad tahay people choice YouTuber-ka ugu jecel yahay horta moogta YouTuber waa ahay YouTuber kale waa jiraan laakiin YouTuber markii la dhaho saaxiibow YouTube ninka loogu jecel yahay dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan asad xaajiyo lagama maro xitaa markii isbarbardhig la sameynayo oo kale asad xaajiyo YouTuber hebel oo kale markii la dhaho 99% dadku adeeg ku doortaan macnaha masha Allah thank you marka dadkii sidaas ahay ba marka hadda waxay maaragtay ka caawdeen ama ay maaragtay ka kaceen in adiga aad buuxdo gabadhaas Soomaaliyeed oo walaasha ah waadna noo sheegtay waadna noo sharaxday asadow aniga mid oo kugu cudur daara saaxiib hadda ina isbitaal ku jirto cudur daara igana raali noqo ina maribintaas laakiin waa runta in la sheego iska fiican tahay waxaan kugu cudur daara waxa waa asadow nin boodi ka dhaantay oo ordi karo mati naan ku dhahana ma jeclaysan iga raali noqo labadaas ma fahmi baraadey waa inay taas fahmaan ma garad saaxiib هذه سيدا شيكتو واي marka bixis walaalka ka weyn ajo asna bixis wuxuu arimahana ma ka kale Abdullahi labadooda ina mid israacdiin waa Soomaa marka meeraadisin inta badan marka waxyaabo badan oo lagu cudur daari kara marka anyway baro waxa waaye dadka Soomaaliyeedna waxaan rajeenayaa inay maaragtay fahmeen sida ay wax u jiraan ninkaasna hal ku jira waad aragtaan marka dajiya gabadhaas walaalkeen ahane in aniga ilaa asad dhammaan Soomaaliya oo dhan caawinaad nooga baahan tahay haddii subscribe noqoto social media haddii TikTok noqoto any platform oo social media waa ku soo dhaweynaa ma fahanti si fiican marka waa kaas asadow ma dib malahan waxa waaye kulay haliso duceeyo ku dhaa wixii kale oo aad iga aaminsan tahay labada ahaato xumaan iga aaminsanaaw ama wanaag iga aaminsanaaw waxaad iga aaminsan tahay waa kugu taageeraa because adaa iga aaminsan ma fahmi marka waxa waaye haddaad xumaan iga aaminsan tahay isoo ducee haddaad wanaag iga aaminsan tahay isoo ducee waxyaabaha aan diidanaa inaan anoo isbitaal ku jiro waxaa ka mid yani dadku wax hadda ay soo qorayaan waxay soo qorayaan waa wax ay qofka ay ku dhibayaan laakiin waxaas hadda uma joogaane waxaasna inaan ka hadlo insha Allah awood ilaahay isiyay insha Allah ilaahay awood isiyo oo sidii hore aan ka fiicnaado oo kasto insha Allah oo leeyga sii wadana ayuu badagana ku salaamaa iyo asxaabta yani wax ka qarsaneed igana waan salaamaa insha Allah hadalkii ugu dambeeyo oo aan idin dhahay waxa waaye insha Allah isku soo duceeyo brother ilaahi caafimaad ha ku siiyo ilaahi caafimaad iyo qalliinka aad sugaysane ilaahi ha ku fududeeyo marka waxaan ku leeyahay guuleyso hore u soco insha Allah ween wanaagsan brother ma fahanti ana haweenay ii tahay guuleyso asad xajiyo insha Allah ayo raajay khayra ku dhaa إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رن أهانتي